dee rag ma garanaysaa isu xilqaamay inay dhexdhexaadin sameeyaan arrinkoodu ma hawl yaraa sheekaa jirtay la odhan jiray inan baa beri niqabay ninkaa waxay kala mutaysteen dhibaato xoog laa kala qabstay muddada ay isqabeen dabeed inantii ninkii waa laga furay mar dambe ayaa haddana waxa guursaday nin kale ninkii dambena tii mid la mid ah ayay ku dhacday oo reerkii u dhismi waaye wuu hagaagi waaye dabeedna ergadii ayaa haddana loo diray mar labaad nimankii tolka ahaa ee loo diray ayaa waxay talo ku gaadheen in inantaa ninkan inta laga furo ninkii hore lagu celiyo waa kii hore ee dee ay iyaduna dhibaatadu kala mutaystay marka waxaan u jeedaa waxa weeye macnuhu dadku way la yaabeen markii hore ergada laakiin haddana wuxuu rag isku raacay waxa weeyaan dee kolley wax ergada lama yaaban yacni go'aamaday soo saareen waxa la yidhi waxii hooyadii rida laga bixiyey iyo rag ba isku raacay kolley rag ba isku raacay beeshii caalamkuna way ku raacday sidaas waxaan u arkaa dabeedna dee wixii la isku raacown axsaabtuna way aqbaleen geesta kalena waxa uu aadan axmed cilmi dhoolayare ka hadlay gogashii uu madaxweynuhu u fidiyey axsaabta isagoo u soo jeediyey axsaabta mucaaradka inay gogashaasi madaxweynaha aqbalaan waxaynu kale ognahay inuu madaxweynuhu go'aanka ka hor gogol fidiyey qolada mucaaradkii markaa waxay ka baqeen in guddidii dhexdhexaadka ahayd oo arrintii ku maqan in ay madaxweynuhu dhinac kale ka furo ولكن waxaan qabaa mar haddii imaka ay guddidii dhexdhexaadkuna go'aankeedii soo saareen beeshii caalamkuna ay ku raacday gogashii madaxweynuhuna ay fidsan tahay inay mucaaradku aqbalaan waayo dee iyaga xal bay doonayeen xukuumadduna xal bay doonaysaa inay aqbalaan gogasha oo kulle ay dhegaystaan dee wixii madaxweynuhu la yimaado oo ay markaana la wadaagi doonaan shacabka ay la wadaagi doonaan arrintaa mucaaradku iyaguna way aqbaleen oo sababtay u aqbaleen waxaynu odhan karnaa soomaalida waxay tidhaahdaa nin faras dabadii ka degay wuxuu dhaamuu waaye marka iyaguna caynkaa ayuunbay u noqotay markii la yidhi laba daran mid dooro inay komishinkii hore guddidutay soo saartay ayaguna saa ku aqbalaan arrinta xukuumaddu ay imika dabada gelisay ee sharciga ah waxa weeyaan horta sharciga waxa loo dhigtaa kolba ciddii jebisa dee in lagu qaado laakiin sharcigii halkan yaalla haddii ay laba dhinac ama laba daraf oo isqabtaa ay labaduba yidhaahdaan hadda sharcigii guddida lafteedu may odhan hala jebiyo beesha caalamkuna may odhan hala jebiyo laakiin waxa weeye macnaheedu waa iska macruufoo dee diiniyan imika haddii walaalkaa la dilo ama adiga cirdigaaga iyo sharaftaada wax loo dhimo haddii masalan walaalka aad ma ka doonayso kale dee qur-aankay ku taallaa in qisaastu ama in la qisaaso ama in ma ka qaadato dee waad saamixi kartaa yani waxa weeye daba qur-aankii kariimka ahaa waad saamixi kartaa waxa weeye maslaxad adiga inaad ama aad caqligaa ka keentay ama lagaa codsaday inaad sidaasaa khayr leh aad samayso marka waxa weeyaan dee maad jebin aayadihii qur-aanka ahaa tanna waaba sharci inagu aynu dhigannay inagoo bini aadana aan isku xaq dhowrayno cid walibana ay waajib loogu leeyahay hadday xukuumad tahay iyo hadday mucaarad tahay hadday shacab tahay intuba inay dhowraan laakiin marka maslaxadda loo arko dee maslaxadda shacabkaa ka weyn sharciga oo la isku raacsan yahay isagoo la odhanaya waa la jebiyey laakiin maslaxadda laga raaco oo tanaasul la sameeyo waana iska dhacdaa caalamka oo dhan in يعني maaha macnaheedu sharci baan jabiyey laakiin waxa weeye maslaxadda qaranka ka weyn marka labada qof ay isqabsadaa ama labada daraf ay isqabsadaa ay isku raacaan in ay maxay tahay sidaas khayr dhaanto waynu arkaynaa dee international community ama caalamkii dadkii caalamka socday inoo yimid oo iyagu laftooda dee shuruuc leh oo sidaa lafteeda sameeya ayaa aaminsan in sidaa la yeelo marka taana waxaan uga jeedaa iyadoo danta shacabka iyo qarannimada loo danaynayo in tanaasulku cid walba uu fiican yahay dalkan cid gaari ma laha